kulan wacan saaxiib yaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada wararka Soomaalida YouTube channelkeena Captain K qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah Farmaajo Agaasimaha cusub u magacaabay VillaSomalia gudiga doorashooyinka oo hakiyay doorashada kursigii loo diiday gudoomiye Jawaari xildhibaano cusub oo lagu doortay magaalooyinka Baydhabo iyo Samareeb xukuumadda Soomaaliya oo ku dhawaaqday in $1 milyan ugu deeqayso gurmadka abaaraha intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon ee wararka Soomaalida YouTube channelkeena Captain K fadlan daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay subscribe ee gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha u horeeya ee hela wararka iyo warbixinadeena like-na saar si uu muuqaalkan dad badan u gaaro wixii fikrado ahna qaybta commentiga noogu reeb mahadsanidin aynu ku bilownay madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa agaasimo cusub u magacaabay madaxtooyada VillaSomalia Agaasimaha cusub ee madaxtooyada ayaa loo magacaabay Professor Maxamed Cabdullaahi Ciise Dheere Professor Maxamed Cabdullaahi Ciise ayaa leh khibrad shaqo oo 28 sano ah waxaana si gaar ah ugu soo shaqeeyay arrimaha siyaasadda maamulka iyo horumarinta bulshada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray agaasimaha cusub in si hufan u guto howlaha muhiimka ah ee haatan horyaala wuxuuna alla ugu bariyay inuu u fududeeyo mas'uuliyadan cusub ee loo igmaday madaxweyne Farmaajo ayaa u mahadceliyay agaasimihii hore oo haatan loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Cabdi Saciid Muuse Cali sidii xilkasnimada ahayd ee uu soo hogaamiyay xafiiskan muddadii koobneed oo xilka hayay dhinaca kalena gudiga doorashooyinka ayaa hakiyay doorashada kursigii loo diiday gudoomiye Jawaari gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa hakiyay doorashada kursigii dhawaan loo diiday inuu u tartamo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari warkan ka soo baxay gudiga ayaa lagu sheegay in cabasho xoogan ka timid qabashada kursigan isla markaana la hakiyay ilaa inta laga helay xal buuxa dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa gudoomiyay shir ay yeesheen gudiga gurmadka abaaraha daran ee xilligan ka jira gobolada dalka ra'iisul wasaare Rooble ayaa ku dhawaaqay in xukuumadda xilgaarsiinta $1 milyan hordhaca u qoondeysay gurmadka abaaraha si loo gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen sidoo kale qoraal ka soo xafiiska warfaafinta Rooble ayaa lagu sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ay iyaguna dhankooda ku yabooheen $2 milyan oo degdeg ah oo wax looga qabanayo dadka abaartu ay saameysay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa faray gudiga gurmadka abaaraha in sida ugu dhaqsiyaha badan caawinaad u la gaaraan deegaanada ugu daran ee abaartu saameynta ku yeelatay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay shaaciyay in uu ugu deeqay mushaarkiisa madaxweynenimo ee bilaha November iyo December howlaha gurmadka dadka Soomaaliyeed ee la dhibaataysan abaaraha ee ka jira gobolada dalka si kastaba gobolada dalka ayaa waxa ka jira abaaro baasan iyo biyo la'aan oo saameeyay dadka iyo dunyada iyadoona abaartu ay dad ugu geeriyoodeen gobolka Gado waxaana sidoo kale abaarta ku leeday xoolo fara badan oo ay lahaayeen dad xoolo dhaqato ah dhinaca doorashooyinka hadaynu eegno waxa maanta magaalooyinka Baydhabo iyo Samareeb ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed lagu kala qabtay doorashooyinka kuraasta ka tirsan golaha shacabka ee 12aad ee dowladda federaalka Soomaaliya doorashada ugu horeysay ee maanta ka dhacday ayaa waxa kursigeedu ahaa Hob 182 oo ay ku tartameen Faisal Ibrahim Xasan iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaana ku guuleystay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo helay 88 cod doorashada ayaa waxa ku tartamay laba musharax oo kala ah Sakariya Maxamed Cabdi iyo Aadan Maxamed Nuur Sansoor oo 4 sano la soo dhaafay ahaa xildhibaan ku fadhiyay kursiga tirsigiisu yahay Hob 170 Aadan Sansoor ayaa ku soo baxay doorashada kursiga Hob 170 isla markaana waxa uu helay codad gaaraya 82 cod halka musharaxii la tartamayay Sakariya Maxamed uu isna helay 12 cod halka 7 cod kalena ay halaabeen sidoo kale doorashada kursiga saddexaad ee magaalada Baydhabo ka dhacday ayaa waxa ku guuleysatay Fawziya Maxamed Sheekh oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhisay kursiga Hob 171 waxaana ay heshay codad dhan 84 cod doorashada hal kursi ayaa maanta ka dhacday magaalada Samareeb ee caasimadda maamulka Galmudug taasoo ku soo baxay Cabdishakuur Cali Mire oo helay 85 cod isagoona ku fadhiyay kursiga Hob 54 gudiga doorashada Koonfur Galbeed oo diiday hakintii kursigii loo diiday inuu u tartamo Jawaari gudoomiyaha gudiga doorashada Koonfur Galbeed Yuusuf Cabdiqaadir Baafo ayaa sheegay in gudiga aanu xaq u lahayn inuu joojiyo doorashada kursiga Hob 103
wuxuu sidoo kale sheegay in gudoomiyaha uu wax sharciyad ah uusan u lahayn inuu kursigaasi joojiyo wuxuuna cadeeyay in kursigaasi doorashadiisa maalinta barita ah la qaban doono wuxuu sidoo kale sheegay inaysan qaadan doonin awaamirka guddiga doorashooyinka heer federaal isla markaana ay leeyihiin doorashada taasoo meesha ka saaraysa guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa hakiyay doorashada kursigii dhowaan loo diiday inuu u tartamo gudoomiyihii hore golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari warkan ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in cabasho xoogan ay ka timid qabashada kursigaasi isla markaana la hakiyay ilaa inta laga helayo xal buuxa ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Siyaad Aadan iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta gaaray magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland iyadoona halkaasi lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Bashiir ee Garowe ayaa waxa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cismaan Karaash wasiiro xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intuu joogo Garowe madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland ayaa waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash iyagoona ka wada hadli doono arrimo u qorsheysan wararka laga helay ayaa sheegaya in socdaalka Maxamuud Sayd Aadan ee Puntland uu la xiriiro arrimo ku aadan doorashada dalka ka dhacaysa gaar ahaan tan golaha shacabka oo ka bilaabatay labada maamul goboleed dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu muddo toddobaad ah uu ku sugnaa magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal isagoona kulamo ku saabsan doorashada la yeeshay dhigiisa Saciid Cabdullaahi Dani guud ahaan waa naga inta wararka Soomaalida YouTube channelkeena Captain K tani warka xiga intaan ku kulmi doono saaxiibayaal sida ay nabadgelyo